hay-adda Sansaf iyo Yufanko ayaa tababar aqooneed u qabtay musharaxiinta golaha deegaanka degmada Ceergaabo iyo mas'uuliyiinta xisbiyada qaranka ee gobolka Sanaaga waxaana seminaarkaas ujeedadiisu daaranayd sidii loo ilaalin lahaa anshaxa doorashooyinka iyo nabadgelyada waxaa munaasabadii furitaankaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiinta komishanka doorashooyinka ee gobolka iyo waliba madaxda sare oo ka socda hay'adaha Yufanko iyo Sansaf kuwaas oo barnaamijkaasi daadihinay waxaana muhiimadda tababarkan faahfaahin ka bixiyay madaxa tababarkaasi Dr. Axmed Cabdi Ducaale inta saddex xisbi qaran ee degmada Ceergaabo ee ka tirsamaya golayaasha deegaanka ee degmada Ceergaabo waan soo dhaweynaa soo dhawaada tababarkan waxa fududeynaya hay'adda Sansaf iyo Yufanko oo iskaashanaya wuxuuna ku saabsan yahay in musharaxiinta golayaasha deegaanka ee degmada Ceergaabo ka tirsamaya guud ahaan ay si xasiloon ku tartamaan nabadda ilaaliyaan xasiloonida guud ahaan degmada iyo gobolka ka qayb qaataan runtii waxa sharaxan ilaa 39 xubnood oo saddex xisbi qaran ka sharaxan laakiin se waxa soo bixi doona waa 13 xubnood qofkii runtii tartankan ku guuleysani inuu si nabadgelyo u haneeyo inta doorasho socotana nabadgelyada iyo xasiloonida la ilaaliyo si fiican loo kaambeyn gareeyo oo aan dadka cunfi iyo dhibaato la kala dhex dhigin cidun baa guuleysan doonta inuu dimuqraadiyadda iyo nabadda iyo kala dambeynta iyo xasiloonida aynu xoojino ayaynu tababarkeena ku qaadan doonaa marka kullaba cidun baa guuleysan doonta hadhow inta guuleysataana in dadka si wanaagsan wax ugu qabto campaign-kana si fiican loo campaign gareeyo oo waxyaabaha cunfiga iyo dhibaatada iyo xasilooni darrada iyo kala boobitaanka keenaya in la iska ilaaliyo si nadiif ah ballanqaad rasmi ah qorshayaal dejisan oo campaign oo fiican la dejiyo tababarkeenu intaas ku saabsan yahay tababarkaasi dhinacooda soo dhaweeyay mas'uuliyiinta xisbiyada qaranka kuwaas oo ballan qaaday inay ilaalinayaan nabadgelyada iyo anshaxa doorashooyinka haday xisbiyada tahay waa nabadgelyada anagoo mar walba anagu kala hadal xildhibaanada markasta anagu seminar u qabana inay nabadda ka shaqeeyaan anshaxana ka shaqeeyaan waxa xildhibaanada dhamaan maadaama ay wada fadhiyaan kelmadda nabadda aan uga faa'iideysanayaa waxaynu u baahanahay in si xor oo xalaal loo tartamo qofkii ilaahay u qoraba kursigan imanaya hadduu ordo iyo hadduu seexdoba qofkii kursigan ilaahay keeni lahaa waa doorayahay annagu ka xisbi u cid ahaan xisbiga cadaaladda iyo daryeelka horena waan uga shaqayn jirnay nabadgelyada istilna waan wadnaa waan ka shaqaynaynaa xildhibaanada iyadana waan ku dhiirigelinaynaa mar walba aan ku encourage garaynaynaa wadani ku metelaya halkan haddana anaga way naga go'an tahay horena waan uga tashanay intaa waxaan ugu dambeyntii halkaasi hadalla mahadcelina oo ku aadan hay'adaha Sansaf iyo Yufanko halkaasi ka soo kala jeediyay gudoomiyaha komishanka doorashooyinka ee gobolka Sanaaga Sharmaake Cabdilaahi Cali Dheere oo dhinaciisa mas'uuliyiinta xisbiyada iyo waliba musharaxiinta ku dardaaray ballan qaadayna taanahay komishanka doorashooyinka degmada Ceergaabo iyo gobolka waxaan ballan qaadaynaa inaanu ku shaqeyno cadaalad sinaan iyo sidii nala ku dhaariyay sababtoo ah wax weeyaan qofna dani nooguma jirto aakhirada iyadana na qaadi maayo ifkana wax na tari maayo saddex xisbi qaranna dhex baanuna murashaxiintana dhex baanuna meeshu deegaanku doonaha ka soo jeedo ciddu doonaha ahaado mid kasta midna waa ka codsanaya murashaxiinta wax weeyaan markay cabasho qabaan xisbiga soo dhex marinaya ujeedada ugu weyn ee tababarkan waxa weeye in la yareeyo ama la xalilo khilaafaadka doorashooyinka inta lagu jiro doorashadan ama campaign-kan waxaan isku boorinayaa saddexdii xisbi qaran inta lagu jiro campaign-ka shuruucda campaign-ka raacdaan saan inagu kala amaan helno oo shacabkiinu kala amaan helaan oo taageerayaashiinu kala nabad galaan nin walba inuu sharciga campaign-ku sida uu qorayo uu raaco oo maalintiisa soo banaan baxo oo calamada iyo astaamaha xisbiga kale ee ay dariska yihiin ama xafiiska kale gurigiisa dhinaciisa ku xidhan oo taageerayaashiisa uu sheego inay ammaan geliyaan oo ay si nabad ah maalintooda ku soo qaataan maalinta kalena ay ku rafacaan waxaan kaloo doonayaa inaan idin sheego dhammaantiin ma soo wada baxaysaa kulli cali adan daahir TV-ga caalamiga Home Cable TV magaalada Ceergaabo